كلنا لبيكم يا رسول الله. 12 bisha Rabiicul Awwal waxaa sanad walba dunida laga xusaa xuska dhalashada iyo weynaynta nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Shacabka Mandera ayaa maanta ku biiray dunida Islaamka ee maanta laga xusay xuska dhalashada iyo weynaynta nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam. Ayagoo raxan u socda ayay ku dhawaaqayeen nabi amaan iyo salliga ayay ku xadreynayeen. ayagoona socod ku dhex marayay jidadka waaweyn ee magaalada Mandera waxayna wateen maryo cadcad oo ay ku xardhan yihiin hal ku dhigyo nabi amaan ahaa. Culimada ahlu sunna wal jamaa ee xuskan garwadeenka ka ayaa bogaadiyay ka qaybgalka xuskan waxayna sheegeen inay muhiim tahay weynaynta xuska dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. علماء منديرة وأهل السنة والجماعة أيام waxaa soo gabagabeynay bannaanbaxii mawluud ayaa soo gabagabeynay walaalayaal mawluud waxa waaye xilliga rasuulkaana dhashay calayhi salaatu wassalaam xilliga rasuulka dhashay calayhi salaatu wassalaam waa xilliga islaamka dhashay ilaahay aayadiis waxaa ku leeyahay laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuulan min anfusihim marka ma ahan rasuulka calayhi salaatu wassalaam markii uu dhashay marka islaamka dhashay weeye saasa ugu farxaynaa u soo bannaan baxnay in ummadii kale oo diinta islaamka aan haysan aan tusno islaamnimada wanaageeda culimada suufiyada Mandera ayaa sanadkan markoodii labaad xusay xuska dhalashada nabigeena ayadoo uu ka maqan yahay caalimkoodii weynaa Sheekh Cabdicasiis oo 2 sano ka hor geeriyooday. Saakowbule Dawa FM